السلام عليكم dhammaan akhyaarta ku xidhan channelkan Raadari Academy ku soo dhawaada qayb kale oo xiiso badan oo run ahaantii sida idinka muuqata Allahumma salli ala Muhammad headline-kan ama headline-ka koowaad sida kaaga muuqata aynu kaga hadlayno wax la yiraahdo how to defend your thesis. Marka intiina ku xidhnayd fiidiyoyada hore ama aad daawatay fiidiyoyada hore waxaan ka hadli jirnay casharro taxanaha oo ah siyaabaha loo diyaariyo waxaan loo yaqaano thesis-ka ama graduation project-ga. Marka qaybo badan chapter badan ayaynu ka soo hadalnay oo chapter-kii koowaad labaad saddexaad iyo qaybo badan oo xiriir la leh software waxyaabahaas oo dhan ayaynu ka hadalnay. Marka mar walba waxaad xasuusnaataa waxaan halkan kaga soo hadalnay waxaan halkan kaga hadli doonaa waa aqoon basic ah oo uu u baahan yahay ardayga undergraduate-ka sidaa daraaddeed casharrada aan halkan inta badan kusoo gudbiyaa waa aqoon basic ah oo uu u baahan yahay in uu magaranaysaay haddii uu u baahdo uu refer gareyn karo ama u noqon karto taageero oo caawinaysa isla markaana aqoonta ama xirfadaha aan halkan kusoo gudbinayaa waa casharro inta badan dheeraad ah oo aanad maybe course-ka research methodology ama research methodska ee jaamacaduhu ay bixiyaan aan inta badan lagu gudbin oo wax marka aad buugga wado mar walba carqaladaha waxyaabaha ugu badan ee professoradu ay ka jawaabaan ama advisor-radu ay ka jawaabaan sidaa daraaddeed baan waxaan jeclaystay in qofku uu u baahdo tool-kan oo online ah oo Soomaali ah inuu halkan ka helo maanta marka waxaan doonayaa maadaama aynu in badan soo wadnay thesis preparation qaybihiisa qaybo kala duwan waxyaabahaas oo dhan ka soo hadlaynay waxaan suppose gareynayaa in aad graduation already buuggaagii dhammayn rabto oo aad magaranaysaay aad tahay you are about to finish yani aad gabagaba tahay finalkii ugu dambeeya aad ku jirto ama abstractkii table of contentskii qurxintii waxyaabahaas oo dhan ku jirto sidaa daraaddeed ay tahay badankiinu marxaladda aad u diyaargaroobaysaa oo marxalad run ahaantii naxdin iyo stress fara badan oo ardaygu inta badan uu aad uga fakero ah maxaa la dhahay difaacashada waxa loo yaqaano marka waxaan doonayaa halka inaan kaaga siiyo hints kooban ama tallaabooyin kooban oo ku caawinaya ama xirfadaha sida loo difaacdo thesis-ka ayaan doonaya inaan fikirkaas siiyo iyo steps ku caawinaya run ahaantii sidaa daraaddeed haddii aad ku cusub tahay channel-kan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe garayso share haddii aad raaciso waa alxamdulilah oo aad la wadaagto asxaabta kale haddii aad comment noogu darto waxyaabaha magaranaysaay aad feedback-gaana waa rabbil caalamiin haddaba waxaan doonayaa halkan markaan u imaado su-aasha waxaan kaga jawaabayaa 3 su-aalood oo kooban ma wada aha su-aashan koowaad ee how to defend your thesis saddexdan qodob uma aha jawaab laakiin waa 3 qodob oo aan u malaynayo inay yihiin ubuucda ugu muhiimsan marka aad difaacanayso thesis-kaaga markaad difaacanayso saddexda qodob haddaba maxay yihiin saddexda qodob qodobka koowaad waxa weeyaan 3 most common thesis defense 3 qaab oo caan ah oo loo difaacdo marka waa 3dan qaab ayuunba inta badan buug kasta thesis kasta oo la difaacanayo ay yimaadaan oo maraan ama qaarkood waxa laga yaabaa inay mixed noqdaan laakiin majorly 3dan qodob ayaa ugu caansan ka saddexaad waxa weeyaan oo ama gelimayna hadii ilaahay ka dhigo clipkan ku gelimayna way noo soo socdaan waa presentation structure and slide content markaad difaacanayso ee aad magaranaysaay soo diyaarsatay ee aad dad badan maxshar dad fara badan hortagayso oo ay ku jiraan dad in badan kaa aqoon badan kaa khibrad badan kaa waayo aragsan both practical and theoretical muddo dheer kusoo shaqeynaya markaad dhex galayso inta badan slides iyo presentation waad soo diyaarsanaysaa maxaa loo baahan yahay inaad ku qorto oo aad ummadda la hortagaysaa oo aad u sheegaysaa sidee baad usoo diyaarsan waayo buugga oo dhan baad qaadan oo aad daabacan oo aad ka sheekayn dabiya dacal mise waxaad kasoo samayn nuqaad muhiima qodobo muhiima ayaad kasoo samayn dabeetana kuwaasaad soo jeedin marka qodobo muhiima inta badan laga soo xushaa contentska ama tusmooyinka muqtadafaadka muhiimka ah ee aad slideska ku qoranaysaa maxay yihiin xageebaad maadaama buugga uu aad ballaadhan yahay meelaha ugu muhiimsan ee aad doonaysa inaad kasoo abaarto ayuu qodobkan fiican kugu sharaxaya qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan yani waa tips waa talooyin ku caawinaya markaad samaynayso oral defense
macnaheedu waxa weeyaan already presentationkii waad soo qoratay waad soo diyaarsatay well prepared baa tahay waxaad doonaysaa haddaba inaad dadkii wixii aad qoratay aad u sheegto ila waxaad qortay isagoo kuu hadli maayo soo ma aragtid marka maadaama aad oral defense samaynayso oo aad maxshar fara badan la hadlayso oo dadka aqoon badan la hadlayso oo dad maxaa la dhahayay more experience more expertise in the field aad la hadlayso waxaad u baahan tahay in aad qaabkii aad orally ugaga sheekayn lahayd waxaan simply waa wada hadal aqooneed marka wada hadalkan aqooneed qaabkii aad magaranaysaa u mari lahayd ee aad dadkan ku dhageysanaya u qancin lahayd baa qodobkana u ka hadlaya marka waa saddexda qodob baan doonaya haddii ilahay ka dhigo in fiidiyoyadan kuwan iyo kuwa soo socda haddii ilahay ka dhigo aan idinkaga sheekeeyo qaybka koowaad waxaan doonayaa inaan horta isla ogaano case defensive waa maxay sida aad la socoto ama in badan oo idinka mid yahay aad dareensan tihiin jaamacadaha majorkoodu kuwa ardayda ku xidho marka ay diyaarinayaan sida inagoo kale majority-ga jaamacadaha soomaalida oo dhan marka ardaygu undergraduate-ka uu diyaariyo waxyaabaha ku xigay ugu muhiimsan waxa weeyaan in uu thesis sameeyo ama project la yimaado wuxuun la yimaado dabeetana waxaasi uu difaacdo marka thesiskaasi waa mawduuca cilmi baadhiseed oo aad dooranayso oo la xidhiidha fiilkaaga oo la xidhiidha fiilka aad istadhigaranayso marka aad mawduuca soo diyaarisay aad soo gabagabayso waxa lagu assign gareeyaa ama lagu diraa maalin aad difaacanayso dad badanna isugu imaayo thesis defensigaas maalintaa lagu asteegayey waxaa lagu ballaminayaa dad expert ah arday baa kasoo qayb gasha macallimiin baa kasoo qayb gasha marka inta badan wuxuu ka koobnaa laba qolob baa meesha isugu timaada laakiin ugu muhiimsan waa adiga oo ah qofkan thesiska soo diyaarsaday ee cilmi baadhihii matalaya ee wixii uu ka diyaariyay thesiskiisa u sharaxaya iyo committee dad khubaro ah oo ama fiilkan ku takhasusay ama qaar u dhow ama dad kale oo expertise in field kala ah laakiin researchka iyo cilmigan wel magaranaysaay aqoon fiican oo wel ah kale dadkaasi markaa inta badan waxay ka koobnaadaan oo mar dadka committee-ga waa 2 ama 3 qof iyo wax ka badan oo magaranaysaay ka shaqeynaya programkaagan aad ka diyaarisay ama field of study-gaaga ku dhow dadkaas waxay noqon karaan dadyow kale oo laakiin professional from other colleges oo collegeada kale ama kulliyadaha kale jooga ama dad fiilka jooga ama dadaan fiilka ba ahayn laakiin kulliyada kale ah laakiin dad aqoon leh ah marka dadkan waxa ay dhageysanayaan waa audience ilaa committee-gan ama ha noqdaan kuwo related la ah mawduucan ka soo diyaarsay cilmi baadhida ama yaanay noqon dadkan mar walba waa audience laakiin waa audience maybe ka ugu yari inuu yahay 20 years iyo wax ka badan waa aragtinimo ah inuu ku shaqeeyay dhigay darsay cilmi baadhis ka sameeyay ayaad u jeedinaysaa wax sidaa daraadeed wixii aad soo diyaarisay ee aad tacabka gelisay bilooyinka ayaad u jeedinaysaa in ay noqoto waxaan uu yahay adiga iyo kow markaa ujeedooyinka ugu badan ee la eega waxa weeyaan loo sameynayaa ee ugu muhiimsan waxa weeyaan thesis defense-gani ay committee-gan meesha u imanaya waxa weeyaan inay mar walba hubiyaan in aad fahansan tahay fiilkan aad istadhigaraysay amaba si kale haddii loo socdo thesiskaagani inta badan problem buu solve garaynayaa ama magaranaysaa dhibaato ayuu xalinayaa isagoo u maraya qaab cilmiyeed marka already thesiskan wuu diyaarsan yahay from A to Z saa daraadeed waxa leeyahay adiga iyo thesiskaagu inaad wada socotaan oo aan ahayn wax meel kale laga keenay iyo leeyahay qodobka labaad waxa weeyaan field baad istadhigaraysay marka fiilkaaga area gaaraad ka sii dooratay inaad areadan iyo waxaan soo diyaarisay inaad fahansan tahay dad u sharaxi karto ka qancin karto qodobka saddexaad maadaama aad tahay qof aqoon-yahana si academically wax u darsay hypothesis iyo research ku shaqo qaatay deetana finally magaranaysaa results iyo recommendation ka diyaariyay gabagabadii waa inaad adigoo as academiga aad ku qancin kartaa dad aqoon leh waxaanaad soo diyaarisay sidoo kale waa in lagu criticize garayn karaa dadka meesha jooga wax kale uma fadhiyaan waa in critique in the position of critique way u fadhiyaan oo macnaheedu yahay in ay ku baadhaan researchkaaga ay saaraan maxaa la dhahay dhaweyso ay saaraan dabeetana ay soo qabtaan saxa kasta khalad kasta noocu doonaha noqday uu ku jira marka macnaheedu waxa weeyaan in xumaan kama aha laakiin academically in la weaknesskaaga lagu tuso lagu sheego adigana ku caawinaysa marka xilliga aad difaacanaysa bahalkan inta badan su'aaluun baa lagu weydiinayaa su'aalahaas waxa laga yaabaa inay dhowr step dadka meesha fadhiya ku xirantay qaabka u maraan inta badan dadka fiilka la xiriira from easy
to difficult from difficult to easy asoo kale inay su'aalaha fudud mar bilowga hore lagu weydiiyo sida badanka ah kadibna su'aalo adag lagugu dambaysiiyo in su'aalo general oo guud oo mawduuca kusoo xeeran lagu weydiiyo si aad u kala garato macnaheedu wax weeyaan maadaama focuskaaga ama parametriska aad adigu istadgalenaysay iyo inaad kala saari karto waxyaabaha generalka ah maadaama researchka mar walbo research question ama hypothesis uu specific yahay marka laga hadlayo marka waxyaabahaas oo kale more important inaad mar walba istadgalenayso aad maskaxda ku hayso inta badanna su'aaluhu waxay u fudud maaha dadku waxa laga yaabaa inay ka fikiraan su'aal adag waxyaabaha inta badan ee aanay ka fikirin difaacanaya waxa weeyaan su'aaluhu waa tricks macnaheedu waxa weeyaan maadaama aqoon meesha lagu falanqeynayo su'aalaha inta badan khiyaamo ah yacni aqoon ay ku dheehan tahay qaab yaroo iska simbala waxyaabahaas oo kale weeyaan inta badan waxyaabaha muhiimka maadaama yacni su'aala lagu weydiinayo su'aalahan dadku ay ku weydiinayaan maaha inta badan kuwa la soo qorsheeyay kuwa la weydiiyo waa su'aalahan qofku markuu ku dhageystay ama uu soo akhriyay uu ka dareemay inay ku dhex jiraan dabeetana uu su'aal kaa weydiiyo adiguna markaa waad difaacanaysaa qaab aggressive macnaheedu maaha cadowtinimo iyo qaab yacni sharaarada ay ku jirto sharis adag oo kulul macnaheedu waxa weeyaan qofkan maadaama fiil aqooneed lagu jiro fiilka aqooneed marka aqoonta laga dooyo naxariis ma leh macnaheedu waxa weeyaan weakness haddii lagugu arko waxaa aqoontahay aad ka hadlayso qofka ku dhageystaah ee aqoonyahanka academic ah uu criticize gareeya marka inta badan critique waxyaabaha aqoonta uu kaga duwan waxyaabaha kale ee aqoonahan academic marka inta laga hadlo waxyaabaha traditionalka waxyaabaha kaga duwan waxa kamid ah in critical questions mar walba ay ka yimaadaan aad u qoto dheer in qofkan ku dhageysanaya markuu waxaaga dhageysto critical analysis ku sameeyo critical analysationka ay ka yimaadaan su'aalo critical ah adiguna markaa macnaheedu waxa waa inaad uga jawaabtaa si critical yani si qoto dheer si aqoon ay ku jirto halka inta markaa waxa looga jeedaa waxa weeye waa aggressive macnaheedu maaha cadowtinimo yani waa critical aad u qoto dheer oo miisaaman hufan ee looga jeedaa shaqadan aad soo samaysay oo aad mar walba dib magaranaysaay aanad ka bixin fiilkii aqoonta marka su'aal kasta oo kulul oo magaranaysaay lagu critical gareeyo waxa aad soo samaysay cadowtinimo maaha macnaheedu waxa weeyaan waa in lagu boolish gareeyo ama lagu saxo oo lagu yani sax tiro weeyaan marka mar walba waxaad xasuustanaysaa timekan aad difaacanayso in already la sii evaluate gareeyay whether inay tahay successful ama ay tahay unsuccessful paperkaaga mid guulaysatay iyo mid aan guulaysanin already waa la sii garanaysaa la sii qiimeeyay oo dad baa loo diray dadkaasi markaa iyaga ka hadlay iyadoo taasi haddana ay jirto ayaaba maxaa la dhahay haddana ay tahay wax aad u wanaagsan oo joogo akademiyada marka la joogo aad ardayda loogu xiro marka waa very important inaad well prepared tahay aad tahay in thesiskaaga iyo research questionkaaga from A to Z waa inaad memorize garaysan tahay waa inaad intii macquula aad dusha ka hayso researchada aad soo xigatay qoraalada laga sameeyey resultkaaga waxa ka soo baxay waa inaad dusha ka hayso haddaba saddex qaab baa ugu muhiimsan saddexda qaab ayaan doonayaa inaan mid walba dadka u sharaxo saddexda qaab waxay kala yihiin qaabka koowaad waxa weeye three most common thesis defense ta koowaad waxa weeyaan answer all the questions correctly waa inaad uga jawaabtaa su'aalaha si saxa otherwise your thesis will not get approved waa inaad su'aalaha si saxa uga wada jawaabtaa haddii kale thesiskaagu waa hal la evaluate gareeyay ama yaan la evaluate gareyn lama approve gareynayo lama sii daynayo qaabkaas waa mid saa daraadeed qaabkan oo kale inta badan waxa aad u isticmaalaa thesisyada ama yaan odhan thesis bahalahan loo yaqaana dissertationka PhD waxyaabaha la halmaala ama masterada oo kale ee aad discussionka faraha badan ugu jiro kaasoo kale lagu sameeyaa marka waa aad critical ayaa la isticmaalaa aad baa loo fuliyaa marka in this case kaloo kale haddii lagu isticmaalo mar walba adiga waxa muhiim ah inaad focuska ku hayso research questionkaaga inaad fahamsan tahay parametriskaaga inaad fahamsan tahay methodskaaga inaad fahamsan tahay resultkii kuu soo baxay in waxaagu from A to Z ay haystaan ayaa muhiim ah waxyaaba muhiimka ah kale waxa weeyaan you have to study each part of your thesis haddii qaabkan oo kale uu yahay marka maxay baad ka darsaysaa waxaad ka darsaysaa every detail oo soo galaya researchkaaga ama titlekaaga si toos waa inaad u darstaa waa inaad si toos ula socotaa waa inaad detail u darstaa
si aad u guulaysato marka waxyaaba muhiimka kale waxa weeyaan waa inaad awood u leedahay aad kusoo talagashaa you have to study and practice how to effectively deliver your presentation marka markay halkan oo kale taagan tahay aad maxshar dad fara badan hor taagan tahay waa inaanad naxnaxid iyo qajilaad ma garanaysaa stress baqbaqid waxaasoo kale waa inaad kala tagtaan mar walba waa inaad tahay well prepared si aad waxyaabaha uga jawaabto qodob kale waxa weeyaan marmarka qaar committeegu waxay meesha u fadhiyaan inay holis baaraan ereyga holis macnaheedu weakness bay halkan uga jeedaan in your study or researchkaaga ku jira they don't care about you adiga markaa kuma doonayaan laakiin studigaaga ayay waxay ka raadinayaan weaknesskaasina inta badan ku weydiinayaan inta badan kan baa ugu caansan maybe jaamacadaha soomaalida sida markaad eegto obviously loo sameeyo ardaydu meesha imanaysa wixii bay difaacanayaan dictator's dhegeysanaya waxaa laga yaabaa markaa dadkan fadhiya inay markay ku dhageysteen ama ay akhriyeen haddii aad u qaybisay waxaaga aad presentationkaaga u qaadisay inay weaknesska un baaraan dabeetana su-aal ay kaa weydiiyaan marka sida ugu macquulsan waa inaanu researchkaaga aad ka ilaalisaa in weaknesskiisu as possible waa inu yaraada marmarka qaar waxaa laga yaabaa adaan wax researchkaagu aanu lahayn godaloolooyin aan lahayn haddana adiga oo hadalka uu iskaga kaa dhex darsamay daraaddeed uu iskaga kaa dardarsamay dabeetana ay wax badan kaa luskarayso no taana looma bahan dadkan cilmi baarayaasha ah ee baaraya cilmi baaristan baaraya ama waxaan doonaya ama su-aalahan ku weydiinaya weaknesskaaga doonaya la soco marnaba cadow kuma aha iyagu marnaba iyagu cadow kuma aha laakiin maadaama aynu aqoon ka hadlayno dadkani waa dad maxaa la dhahayay academicisa waxa ay wadaan iyagu waa critique unbay ku jiraan saas daraaddeed su-aal critical ba imanayso adag waa inaad jawaab critical u haysaa waa intaas dadkani markaa gaba ujeedadooda ugu weyn waxa weeyaan they help you to polish your study waa inay sax tiraan way ka saaraan weaknesska khalaad ka saaraan dabeetana ay u noqoto perfect research aada u qurux badan oo wanaagsan marka waxaanay mar walba kugu challenge gareyn waxaa laga yaabaa su-aalo challenge inay ku weydiiyaan oo adag mararka qaarna difficulty suggestion ay kusoo jeediyaan marmarka qaar tricky questions ay ku weydiiyaan adoo saxsan ba haddana marka mar walba waxay eegayaan adiga iyo researchkaagu sida ama garanaysaay u wada socotaan ayuun bay eegayaan marka waxaan waxa laguu soo dhibay haddii ama qof kuu soo qorqoray ama laguu soo aad iska soo copy paste aad wax badan ku fahamsanin halkaasoo kale waad haraysaa ama aad soo qaadatay dib gabagabada they will walk you through the process to come up with a better result that will not only benefit you but also your research gabagabada marka waxay ku sheegayaan weaknesskaaga halka khaldan sida loo hagaajinayo waxaasoo dhan bay ku sheegeen taasina waxay caawinaysaa aakhirka in researchkaagu uu noqdo aakhirka marka dambe wal uu noqdo maybe dib baad u bilaabaysaa mar haddii weakness lagu helay markaa waad ka taxadiraysaa qaabka saddexaad haddii tesiskaagu is not successful you have to start your thesis all over again haddii tesiskaagu kadib markii su-aalo fara badan lagu weydiiyey deetana weakness fara badan kuu soo baxay qaabkani wuxuu sheegayaa in methodkani wuxuu sheegaya inaad dib ugu noqon doonto dib usoo bilaabi doonto marka maxay bay dhacday maybe adaaba waxa laga yaabaa in wax lagaa helay weakness kulli waxa suurtagal qof wax soo diyaariyey dee ma garanaysaay oo wuxuun inuu sitaa ilaan waxba loos garaynayn oo dee waxba ma garanaysaay aanay kaga soo noqon tesiskiisa laakiin haddiiba ay dhacdo oo weakness lagugu helo way dhacdaa nidaamyada qaarkood in lagugu reject gareeyo la yidhahdo buuggaagaasi researchkaagaasi waa reject marka inta badanba haddii aad kasoo gudubtay tusaale ahaan oo kale proposalka oo kale haddaad kasoo gudubtay defensidiisii uu noqday accepted noqday oo halka lagu dhilay ee lagu kala haadiyay ee lagu saxartiraya ay tahay maybe kanoo kale inta badan ma dhaco laakiin sometimes way dhacdaa in intaa wixii ka dambeeyey aanad tacab badan iyo dadaal badan gelin oo aanad iska hagaajin taasina ay keentay in marka dambe lagu soo celiyo marka tanoo kale maybe waxa laga yaabaa in lagu arko researchkaaga meelo khaladaad yaryar kuwaasina aanay aad dhaawac u keenaan in dabeetana ay keenaan inaad dib u saxdo dabeetana maybe aad dib u difaacato marka kuwaasoo kale waa minor revisions and that is normal that's okay taasna meelahaasun baad ku noqon aad dib soo hagaajin dib usoo sixi kadib dib baad adiga supervisor uga tashan then maybe waxay noqon qaabka aad uga tashataan adiga iyo cidda maamulka kulale markaasoo kale marka saddexdan qaab waa saddexda qaab ugu muhiimsan marka laga hadlayo difaacashada bugaagta marka mar walba waxa muhiima maadaama aynu ka hadlayno defense iyo waxyaabaha lamidka ah inaad well prepared tahay preparationkaasi waa inaad dusha ka haysaa waxa ugu macquulsan waan ka hadli doonaa qodobada ugu muhiimsan ee lasoo qaato
waa inaad haddii aad fahansan tahay macnaheedu waxa weeyaan mar walba haddaad research questionkaaga fahansan tahay ama hypothesiskaaga ama sidoo kale aad fahansan tahay objectiveskaaga aad fahansan tahay wadada ay marayaan methodka lagu doonayo resultkii kaaga soo baxay waxaasoo dhan aad haysato yaarok wax dhibaato ay ku jiraan waxaa muhiimka ah oo kale waxa ka mid ah marka aad researchkaaga aad difaacanayso waa inaad powerpointkaaga soo daabacataa oo aad u qaybisaa dadka macquulka ah ee hadhow ku critical gareyn doona aad u dhigtaa waa waxyaaba muhiimka ah qaybtan halkaasaan ku joojinaynaa hadii ilaahay ka dhigo qaybta dambe ayaad la socon doontaa mar walba waxaan kaa codsanayaa inaad ilaawin inaad subscribe garayso channelka iyo inaad sii share garayso intaba si aan ugu wada faa'iidaysano halkan aad baad u mahadsantihiin nabadgelyo